maamulka Gaarisa ayaa daafuray xarun loogu talagalay in lagu karantiilo bukaanada caabuqa coronavirus oo ka kooban qaybo badan. Xaruntani ayaa lagu diyaariyay agabka lagula tacaalo caabuqa coronavirus oo hadda dalka ku sii fidaya. Waxaa kormeer ku tagay xaruntani oo laga dhisay isbitaalka weyn ee Gaarisa gudoomiye ku-xigeenka ismaamulkani Gaarisa Abdi Dhaqane waxa uu ka warbixiyay diyaar garowga ay ugu jiraan sidii ay ula tacaali lahaayeen caabuqani coronavirus. sidaad arkayseenba maanta waxaan kormeeraynay aan fiirinaynay maaragtay sidaan ugu diyaarsanahay xanuunkan adduunka oo dhan ka dilaacay marka waan isbitaalkii baan tagnay waan fiirinay waxaanan aragnay ilaa xad inaan maaragtay aan fiicannahay qaribo 10 sariir oo maaragtay sariirada loo aqaano ICU inay diyaarsan yihiin qalabka iyo mashiimaha sida oxygenka iyo mashiimaha la yiraahdo ventilatorska ayagana way diyaarsan yihiin mid kale waxaan tagnay meesha oo dadka lagu isolation area la dhaho ama lagu quarantine gareeyo ayagana way hagaajisan yihiin marka shacabkayna waxaan u sheegaynaa xanuunkan xanuun yar ma aha waa xanuun adduunka oo dhan ka dilaacay muxuuna ka soo bilowday wadamada maaragtay loo yaqaan wadamada hodanka ah guud ahaan dalka ayaa hadda laga xaqiijiyay kiisas gaaraya 126 kiis oo la xiriira caabuqani coronavirus walina ma jiraan wax kiis ah oo laga diiwaan geliyay ismaamulkani Gaarisa.